Hotelka Daalo ee magaalada Burco oo ka mid ah hoteelada ugu casrisan ee ku yaala Somaliland ahna hotelkii Martigaliyey carwa ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland ayaa maamulaha hotelkaasi Maxamed Cabdi Axmed oo maanta kuna warbaahineed ku qabtay barxadda hore ee hotelkaasi ayaa ka warbixiyay hanaankii ay u qabsoontay munaasabadii carwa ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland oo uu Martigaliyey hotelka Daalo isagoona u mahadnaqay cid kasta oo qayb ka ahayd carwa ganacsiyeedkaasi maanta runtii farxad ayay noo tahay dhamaanteen waxa gabagaba ah oo saacado ka bacdi insha Allah taala soo gabagaboobaysa carwa ganacsiyeedkii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaan aad ugu mahadnaqayaa rugta ganacsiga oo gacan weyn ka geysatay in carwadani ay timaado Burco guud ahaan rugta ganacsiga gaar ahaan gudida rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer ka maamul ahaan markaanu nahay Daalo Hotel runtii waxay ahayd hawl weyn bay ahayd oo diyaar garowgeeda lahayd oo dadaalkeeda lahayd waxa isugu imanayay ama soo booqanayay ama imanayay hotelka ku dhawaad ugu sareyn ilaa 10,000 oo qof 7,000 oo qof marka la eegayay kaararkii lagu soo galayay laga cabiray xagga runtii qof adeeg daro tirsaday ma jirin haday tahay cuntada haday tahay cabitaanka haday tahay adeegyada kale aad iyo aad baan ugu dadaalay waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan uga siisay security-ga hadii ay tahay qayb weyn ka qaatay ciidamada booliiska laamahooda kala duwan waxa taagnaa ciidanka dabdamiska oo diyaar ahaa waxa joogay qaybtii caafimaadka ee gargaarka degdega ah haday tahay waxa sidoo kale joogay layrkii biyihii qolo waliba heegan bay ahayd halkan ku cadaynaynaa haddaanu nahay Daalo Hotel inaanu capacity iyo awood u leedahay inaanu qabanno dhacdadan oo kale iyo kuwa ka waaweyn anagoo matalayna gobolka Togdheer anagoo matalayna magaalada Burco marka waxaan leenahay fariintaanu diraynaa waxa weeye cid kasta oo danaynaysa Burco maanta waxa cadaatay Burco awoodeeda ganacsi waxay ahayd waxa cadaatay population-ka ku nool cid kasta waanu ku soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer waxaanu leenahay ku soo dhawaada haddaanu nahay Daalo haddaanu nahay reer Burco waxaan leenahay dadka waa magaaladii ganacsiga waa magaaladii xudunta u ahayd Somaliland inaan halkan uga mahadnaqo shirkadihii aad iyo aad ugu dadaalay ka soo qaybgalka carwadan waxa ugu horeeyay shirkadii ugu horeeysay ee hotelka timaada wuxuu ahaa ganacsade Axmed Cismaan Geelle Las Group Company SBI Group waxa kamid ah shirkadda Dahabshiil Group oo adeegyo fiican halka runtii bixinaysay Telesom Group shirkadda Ilays Premier Bank Amal Bank So Company shirkadda Ila Tango oo iib aad u badan meesha ka sameeynayay shirkadaha dawooyinka ee Mubaarak iyo Al-Aamin Al-Fatak shirkadaha furniture-ka City Furniture iyo Daryeel shirkadaha biyaha Burco ee wax soo saarka Burco saxan saxo iyo maaxda Allamagan Company shirkadaha basaska dhammaantood lama xaadirin karo boqolaal company bay ahaayeen lagama wada sheegi karo halkan laakiin dhammaan waan u mahadnaqaynaa dhinaca kale waxa iyaguna ka mahadceliyay shirkadihii qaybta ka ahaa carwa ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland adeegyada hotelka Daalo ee magaalada Burco anigoo Maxamed Cabdi Qowdhan madaxa iibka iyo suuqeynta shirkadda Las Group waxaanu hambaliyeynaynaa hotelka weyn ee Daalo oo cuntadii cabitaankii hurdadii iyo adeegiiba iskugu daray dhammaan shirkadaha ka kala yimid Somaliland oo dhan mar labaad waxaan u mahadnaqayaa hotelkan oo karti u yeeshay inuu intaas oo qof u martigeliyo oo uu service-koodii iyo cuntadoodii iyo sharaabkoodii waa ka adkaadaynta iyagana waa mahadcelinayaa ugu dambeyn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka iyo hawlwadeennada Daalo Hotel sida fiican ee qiimaha badan ee agaasinka badan ee ay u xamileen capacity-ga ballaaran ee inta leeg ee kumanaanka qof ah in hotelkooda ay ku qaabilaan waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinaynaa hotelka caanka ah ee Daalo Hotel Restaurant waxa uu soo bandhigay adeeg aan hotel kale oo magaalada ku yaala awoodi kareen Daalo Hotel oo ah hotelka munaasabadan carwada ee weyn u fudeediyay
cabdirashiid timir Home Cable TV magaalada Burco.